ciidamada ilaalada xeebaha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa howlgallo kala duwan oo ay ka fuliyeen xeebaha dhinaca bari ee gobolka Saaxil waxay ku soo qabteen in ka badan ilaa 30 doonyood oo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya xeebaha bari ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale ku dhawaad ilaa 80 qof oo watay doonyahaasi oo u dhashay wadanka Yemen. doonyahan ayaa ciidanku markii ay soo qabteen waxay keeneen xarunta ciidanka ilaalada xeebaha ee magaalada Berbera. taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Sarreeye Guuto Maxamed Faarax Xiiran ayaa nooga warramay howlgalkan iyo sidii uu dhacay waliba kalluumaysatada sharci darrada ah ee ay ku soo qabteen iyo howlgallada ay ciidanku ka wadaan xeebaha bariga iyo galbeedka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. taliyaha arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxaan ku gelayay waxbarasho socotay dhalinyaradii shaqada qaranka iyo ciidankii hore si ay sula qabsan lahaayeen ayadii ka qabta barka waday muddo 3 wiiga meel fiican buu marayay dabad waxaan go'aan ku gaaray inaan kormeer ugu baxo bariga kormeerka aan ugu baxnay xildiraad markii ku dhaweeyeen bal loo kalanay doonyo badan oo cadan qolada carabta ah wadogtiina cadan way dhintay waxaanay deeyneen badda inay ka kalluumaysan waxaanay deeyneen doonyaha waan soo kaxaynay xalay labadii baan keenay waa ay joogaan si ay dhidaadan la balansanahay gacantan ku gelin doonaa waxa ka taliyahan khalad badan baa ay muuqda sharcigan marin doonaa khaladka waxa sharciga lagu toosiyo loo baahan yahay anagoo noqon meeno man fadhida waxa wala si socon doonaa waa la hayaa daweelkii lagu baar lahaa wax lagu baar lahaa insha Allah waxa laga safayn doonaa nimankan bartay inay mataqaana badda boobaan dhawaanna waa nagii sii dhactaynay haddana waa nagan u baxnay wareegan oolahaas uu socon doonaa baddu waxa waa bad dheer ciidanka ka xoog badan yeelkeeda waxa nin walba waxa ku socdaa waa la dadaalayaa waxaan jecelahay hadii la ka dhigo in badda ka dhigo sanadkan cusub ka leer laga dhigo oo aan wax dambe ka dhicin insha Allah taliya doonyahan imka qabateen kalluumaysatada sharci darrada ilaa intee ka kooban yihiin dad inta leegna way saaran yihiin shaqof baa saaran 12 waa kuwa mataqaana talaagada leh 10 kale 12 kale waa kuwa u shaqeeyay badda dhexda istaagayaan maca talaagada kuwa yarba u soo shaqeynaya marka waa 22 doonyood weeye marka sharciga waa fujin doonaa dilaa ka dhigo marka saasa insha Allah bay ku dhamaan doonto ku cadaato in sharci darro ku kalluumaysanayeen doonyahaasi aa soo qabateen howlgalkan ay sameeyeen shalayto sidee baa idinku yeelaysan ciidanaha wallahi maxkamaddu man ku go'ayna dalku sharci buu leeyahay maxkamadan marsiin doonaa si ay dhidib iyo biliiska u yeeri doonaa way baari doonaan waan horgeyn doonaa ka baxbada waan horgeyn doonaa dilaa ka dhigo maxkamadan horgeyn doonaa oday weyn baan wali shaqada garanaya wax badan oo khalad baa ka muuqda laakiin ka hor dhici maayo sharcigan horgeyn doonaa insha Allah inta badan taliya adigu howlgallada badda adigoo taliyihii guud ee ciidanka ah siyaasadda guud ee ciidanka ka mas'uulka ah adiga inta badan galaba badda oo doonyahan kalluumaystada iyo arrimahaas soo qabta saraakiishada ku qaabilsan saldhigyada kala duwan miyad ku aamin weyday adigu taliyaha wallahi ma ugu kalsoonahay waxa maadaama fiilkayga markii hore bileeska laftiga inaan la qayb qaato la galo badda oo hogaamiyo iyaga la soo hogaamiyaa waan hogaamiyaa laakiin nimanka badda aad u yaqaana waa iyaga laakiin ragayga ma diidin oo waxa nin rag iska carariya mihi laakiin waxa la hogaamiyo waan ugu horeeyaa dadka taasaa keenaysa in safarada badda miya sii wadaysan ee ku ilaalinaysan insha Allah dilaa ka dhigo insha Allah aad iyo aad laakiin waanu sheegin doonin saan shal dusha uga dhacna